sanadihii 56 ilaa 69 waxaa maamulka dalka hayay dawlad taagdarida iyo habacsanaanta ay u dheereyd musuqmaasuq iyo fowdo amaankii xasiloonidii ayaa faraha ka baxay dagaal joogto ah ayaa qabaa'ilada ka dhaxaloosmay heer la gaaray in caasimadda laba beelood ay ku diraan waxaana radio muqdisho laga baahiyey cod nuxurkiisu ahaa abgaal iyo mursade dagaalka xaafadaha wardhiigley ka socda ha joojiyeen fowdadii iyo nabadgelyo la'aantii waxay ku biyashubatay in madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaak uu toogto askarigii loo xil saaray ilaaladiisa iyo badbaadadiisa ayadoo loo adeegsaday muruqa ciidamada qalabka sida iyo maalka qaranka musuqii ayaa gaaray meel sare waxayna noqotay in waraaqihii doorashooyinkii dhacay 58 64 ilaa 69 lagu shubto gaar ahaan ururkii SYL ay ku shubtaan haddaba wixii markaasi ka dambeysay ciidamada qalabka sida ayaa awoodda dalka kula wareegay afgambi aan dhiig ku daadan afgambigii lagu majaxaabiyey dawladdii musuqmaasuq ahayd dadweynaha waxay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo raynrayn ayagoo aad u bogaadiyey talaabadii ay qaadeen xooggii dalka Soomaalida oo dhan si hagar la'aan ah ay u taageereen golihii sare kacaanka daacadnimo ayaa loola shaqeeyey ducana waa loogu daray allaha u naxariistay abwaan cali sugulle maalintii xigtay ee afgambigaan dhiigga ku daadan oo ku beegneed 22 bishii Oktoobar 1969 wuxuu alifay erayadii haystii ahayd haddii xalay 9 xilkastii noo dhaqaaqay oo maanta xooggii haysto xamdi ilaahay weeye sidaasi oo kale Siciid Maxamed Siciid Xarawo ayaa isna alifay haystii ahayd towradda tan barakaysan dhankasta dib u dhaca dhaqan dhaqaale oo baaxad weyn leh ayaa dalka la degay wadankan wuxuu la mid ahaa beer bislaatay oo u baahan in miraheeda la gurto ayadoo markaasi loo jeel qabay in hoggaanka sare la bedelo waxaana markaasi curtay kacaankii Oktoobar curashadii kacaanka kadib Maxamed Siyaad wuxuu ummadda u sameeyey ballanqaad ahaa inuu xukunka dib ugu celin doono gacanta dadweynaha markii uu tirtiro musuqmaasuqii baahay xilligaasi khudbadiisii ugu horeysay codkiisa ma hayne wuxuu yiri waxaan awoodda dalka kula wareegnay magaca dadka Soomaaliyeed iyo magaca dalkooda ay jecel yihiin waxaan ka codsanayaa Soomaali oo dhan inay u soo baxaan oo dhisaan ummadooda kana dhigaan ummad adag wax alaalana wixii awooddooda ahna ay isticmaalaan haddii ay ahaan lahayd hantidooda iyo maskaxdooda si ay dalkooda u dhisaan oo si walba isaga ilaaliyaan inay baryootamaan haddaba waraysigii ugu horeeyay uu Maxamed Siyaad Barasiyo laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaa ka qaaday Cabdulaahi Xaaji uguna tagay xaruntii Afisyooni wuxuuna weydiiyey dadka Soomaaliyeed xukunka militariga ma jecle goormaad xiriyihiina ku laabanaysaan inkastoo Maxamed Siyaad su'aashaasi uusan jeclaysan sida uu sheegay Cabdulaahi Xaaji wuxuu yiri waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeraleyda iyo dadka shaqli weynaha iyo askarta inay dad isku dadayihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalabta hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsado inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay manin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dhibkana uu dhibkiisa yahay dantanada annaguna way nooga shaqeynaya Soomaalina khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala ah meel ka buuxsanaya Soomaaliin daacadaho xuquuqda jecel iyo horowkaca ummadda kulligeedoo idil marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya يعني مثل حكم عسكري باتري أنا ما يهدي أنا واجي ورا عسكري أهانش تدان اللي يقول المامين انتيسي كيا هي صوتك اللي يرضى متعلمين تا أو رعاية تا أو ضلك تشوفي صو ما هي يعني حتى بس وحلا يمد أقول شيء دوا قرنا هي
election goormaad samaynaysaan ayaad ileedahay taasaad u socotaan xaggiina saas baa looga fakaraya waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarahayaaye ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa haddaba ballanqaadkii maxamed siyaad bare allaha u naxariistay wuxuu ahaa mid afka baarkiis ah waxayse ahayd caado lagu yaqiin madaxda qaaradda Afrika inaysan xukunka ka degin ilaa ay musiibo ka culays badani ay ku habsato oo kursiga lagu dildilo markii ciidanka qalabka sida ay awoodda dalka la wareegeen waxay soo bandhigeen barnaamijka siyaasadda gudaha iyo midka dibadda lagu hagi doono Soomaalidu waxay tiraa shini dirirtay malabkeeda ayaa la helaa durbadiiba waxaa iska hor yimid 25kii sarkaal ee isku magacaabay golihii sare ee kacaanka markaas oo kacaankii jirayba 5 bilood oo kaliya waxaana la hergeliyey halkudhigii ahaa qorsheel qoorta gooya General Jaamac Ali Qorsheel oo lagu eedeeyay isaga iyo odayaal ganacsato ahaa inay abaabuleen afgambi xukunka looga tuurayo Maxamed Siyaad Bare ayaa la xiray 24kii bishii afraad 1970kii laakiin arrintaasi oo ahayd been abuur aan beyd run ka ahayn balse u muuqatay in dan kale laga lahaa General Qorsheel ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana lagu eedeeyay inuu yahay qaran dumis waxaase la waayay sharci lagu toogto waayo xilligaas dalku ma lahayn sharci u ogolaanaya in tuhun siyaasadeed qof lagu dilo waxaase soo ifbaxday dantii Qorsheel loo xiray oo durbaanka weyn loo garaacanayay inay ahayd in la unko sharci ogolaanaya in la dili karo mucaaradkii Maxamed Siyaad Bare 10kii bishii 9aad 1970kii dawladdii kacaanka waxay soo saartay sharci lambarkiisu yahay 54 oo ka koobnaa ilaa 25 qodob oo wada dil ahaa sharcigaasi wuxuu dalka u horseeday halaag iyo hadimo ba'an waayo dilkii lagu fuliyay Soomaali tiro badan sharcigaasi ayaa loo cuskaday abaabulkii afgambigii dalka ka dhacay kadib Maxamed Siyaad wuxuu ciidamada qalabka sida ka xushay rag u dhagan nugul hase ahaatee 23kii bishii 10aad 1969kii waa 2 maalin kadib afgambigii dhacay xubnihii golaha sare kacaanka shir ayay ku yeesheen xiradii Afisyoone waxayna ka doodeen sarkaalkii loo magacaabi lahaa gudoomiyaha golaha sare kacaanka Allah u naxariistay Maxamed Siyaad oo aanan beerkaba laf ka filan rag baa xaska kaga soo baxay oo jagadii gudoomiyaha kula tartamay waxayna kala ahaayeen 3 sarkaal Salaad Gabayre Kadiye Maxamed Ceenaansho Guuleed Ismaaciil Cali Obokor codbixintiina waxaa ku guuleystay Maxamed Siyaad oo loo doortay gudoomiyaha golaha sare kacaanka haddaba faktii horeba Maxamed Siyaad wuxuu ka shakiyay raggii kula tartamay gudoominimada wuxuuna cabsi xoogan ka qabay in raggaasi ay kula tartamaan hoggaanka xoogga dalka Soomaaliya ama madaxtinimada dalka wuxuuse aad uga cabsi qabay sida la sheegay Salaad Gabayre oo ahaa nin aad u kulkulul oo fikirkiisa aan la gamban la wareegistii xukunka ka hor waxaa jiray shuruudo lagu heshiiyey kuna aadanaa shaxda awood qaybsiga waxaana ka mid ahaa in Maxamed Siyaad maadaama uu ahaa qof waayeel ah xagga da'da iyo darajadana ugu weynaa raggii tashaday loona tixgeliyo xilka madaxweynenimada halka taliyaha xoogga dalka Soomaaliya loo magacaabo Salaad Gabayre markii afgambigii lagu guuleystay Siyaad Bare waxaa la sheegaa in laga dhaadhiciyay in Salaad Gabayre qorsheenayo ama meel u taal qorshe la mid ah tabtii kacaankii Masar uu Jamaal Cabdinaasir u maray xilka madaxweynenimada taas uu kala wareegay General Maxamed Najiib kadib markii 2 sano oo ku siman uu xilka hayay xagga da'da darteed sidaasina uu Jamaal Cabdinaasir xilka ku qabtay Salaad Gabayre wuxuu saaxiibo dhow la ahaa Maxamed Cali Samatar iyo Cabdalla Faadil waxaana la sheegaa in Gabayre uu labadaas nin qorshihiisa u sheegan jiray laakiinse labadii nin waxay qorshihii Salaad Gabayre u sii gudbin jireen Maxamed Siyaad oo tilaabo ula socday dhaqdhaqaaqii uu waday Salaad Gabayre haddaba arrintaasi waxaa ka dhadhansan kartaa khudbadii uu Maxamed Siyaad Bare u jeediyey golihii sare kacaanka isaga oo sheegay in saaxiibadii hadda la jooga ay la socdeen ama ay ku marag furi karaan dhaqdhaqaaqii Salaad Gabayre inkastoo Siyaad Bare uu diiday in raggaasi magacyadooda uu sheego isaga oo ugu cabsi qabay inay halis ama qatar ay galaan
عبادي هذا إلى جوجا كمرك فران أين أوجين أوركولا حاطر إني مرك فران مرة محاول حيوان خطر هذا مرك فران وحلا هاي سكامسين يعني لا يعني صراحة قرشيل وكوري مركو معامر عبد الستي وأسقط الستي ريفولوسيون كلا يوم سنة والله وكوري وأنا وجانا واقع الملاعب وأنا وجانا وأيكوري قرشيل قبشيد وكوري مركو الدربان يبرو يهبل يكن يأرض يمحوها حد الهبل يكفتن هبل يمشي هبل أنتوا الأرض وضوء ورسوا حوطة معاملات كوستا حوطة وصعون ماي قال لك قول لي باني ماي كتشوتشي كان شيشينا كان سقينا كان هوصينا بين باتشيكس كان صبينا كتشوف ماي كمان قرينا horaa loo yiri booraan hadima ha qodin haddaad qodana ha dheereen saa ku dhici doontida lama oge waxaa la sheegaa sharcigii 54 abaabulkiisa iyo iskudubarudkiisa inuu gacan weyn ku lahaa Salaad Gabayre sanad kadibna halkudhiggii ahaa qorsheel qoorta gooya waxaa lagu bedelay Gabayre geedka geeya sidaasi aawadeed afartii bishii shanaad 1971 waxaa la xiray Generaal Salaad Gabayre Kadiye Generaal Maxamed Caynaansho Guuleed iyo Kolonel Cabduqaadir Dheel allaha u wada naxariistay dhammaantood waxaa lagu fuliyey sharcigii ay gacantooda ku samaysteen oo ahaa 54 midkaasi oo wadada u xaarayay muraadkii Maxamed Siyaad Bare saraakiishii kale ee ku sii haray golihii sare kacaanka waxay noqdeen magacuyaal xaalkoodan wuxuu noqday ishii weer baa ku quustay haddaba raggii Maxamed Siyaad Bare xilka gudoominimada kula tartamay ee kala ahaa Salaad Gabayre Maxamed Caynaanshe iyo Ismaaciil Cali Abubakar faktii horeba Maxamed Siyaad wuxuu toogasho ku dilay labadii ugu dhaqdhaqaaqa badnaa isla markaan uu cabsi xoogan ka qabay inay isaga kursiga ka tuuraan ugu dambeyntii sagaalkii bishii 6 1982 ayaa Ismaaciil Cali Abubakar la xiray oo 7 sano xabsi lagu hayay laakiin horaantii bishii February 1989 ayaa xukun dil ah lagu xukumay balse xukunkaasi laguma fulin sababtoo ah Maxamed Siyaad Bare wuxuu xiligaasi la mid ahaa muruudi jabay oo awoodiisii ay yaraatay Ismaaciil Cali Abubakar iyo Cumar Caarte iyo rag kale oo la xirnaa ayaa cafis madaxweyne lagu sii daayay 16 bishii 3 1989